qarax ismiidaamin ah oo qof isku soo xiray ayaa waxa uu ka dhacay xarunta saddexda geed oo ku taala degmada Shangaani gobolka Banaadir waxayna u dhowdaa xarunta qaraxu ka dhacay saldhigga degmada waxaana ku dhintay ilaa 6 ruux dhaawacna wuxuu gaarayaa ilaa 11 ruux welina ambulance waxay ka daabulaysaa goobta dhaawacyadii qaraxaasi ka dhashay waxa goobta yimid ciidamada booliiska oo xiray gabi ahaanba halkii qaraxu ka dhacay xarunta saddexda geed ayaa waxay tahay goob inta badan ay isugu yimaadaan dadkuna ay ku fiirsadaan waxayna goobtaasi ay tahay goob shaah lagu cabo cabitaanada iyo sidoo kale waxyaabaha fudud sida sambuuska ay dadku ku cunaan waana xilliga qaraxu u dhacana waxay ahayd xilli aad u saxmad badan oo dad badan ay isugu yimaadeen qaraxan ayaa wuxuu noqonayaa mid aad iyo aad u xoogan oo qasaaro badan geystay waxaana laga maqlay gabi ahaan magaalada Muqdisho waxaana hay'aduhu booliisku wali aysan arintaasi aysan cadeynin walow ay wararka qaar sheegayaan inuu ahaa qofka isqarxiyay qof isku soo xiray walxaa qaraxa saraakiisha booliiskuna noo sheegeen in wali qofka u yaala jirkiisa qayb ka mid ah halka qarax uu ka dhacay dhaawacyada qaraxaasi ayaa waxa la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho waxaana halkan ka daabushay ilaa 6 ambulance oo buuxda ayaa halkan laga qaaday kuwaasoo la geeyay isbitaalada magaalada Muqdisho qaraxyada magaalada Muqdisho ka dhacaya inta badan waxay yihiin kuwa saameyn xoogan u geysta bulshada qaybaheeda kala duwan maxamed ciise kona Universal TV Muqdisho